Kusoo dhawaada maanta waxaan ka hadli doonaa waxa la yaqaan diabetic ketoacidosis ama DKA. Calaamadaha ugu horeeya ee lagu arko DKA-ga haddii aan soo koobno waa qofka sokortiisa kacsanaato, ketosis, acidosis, dehydration iyo electrolyte imbalance oo mid aan u sharxi doono. Laakiin marka hore aan ku bilowno normalka jirka ee sokorta si loo maamulo. Dhiigga caadiga waxaa ku jirta sokor. Sokortaasna waxaa u baahan unugyada jirka. Marka unugyada jirka si sokortaas ay u helaan waxaa loo baahan yahay maaddo loo yaqaano insulin, taasoo uu beerku soo saaro. Insulinta waxay sameynaysaa sokortii soo qaadaysaa dhiigga, waxayna siinaysaa unugyada jirka si unugaas uu u helo waxa loo yaqaano energy. Taas waa sida normalka caadiga jirka. Laakiin DKA marka la fiiriyo sokorta dhiigga ku jirto oo energy ahaan in unugyada loo geeyo loo baahan yahay, waxaa la weynaa insulintii sokorta qaadaysay. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa in sokorta dhiigga ay ku badato maadaama insulinta aysan meesha lahayn. Unugyadani maadaama aysan glucose helin, energy ma helayaan. Taas beddelkeeda waxaa energy ahaan loo isticmaali doonaa beerka sokor badan laga soo saari doonaa. Sokortan dhiigga ay kusii badanee. Marka weli unugyadu way baahan yihiin, waxay u baahan yihiin energy maadaama glucose-kii meesha aan la keenin. Marka si energy loo helo waxaa loo baahan yahay waxaa la isticmaalaa faatka jirka. Faatkaas waxaa loo bedelaa energy. Markii faatka energy loo bedelana waxaa soo baxaysa waxa loo yaqaan ketone. Ketone-ka dhiigga ay ku badanee markaas. Taas waxaa dhacaysa marka ketosis oo ah dhiiggii in ay ku badato maadada ketone-ka ahay. Marka calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu garto diabetic ketoacidosis laba meel laga fiiri doonaa oo ah unugyada baahida uu qabo sokorta iyo dhiigga sokorta dhex taalo iyo ketone-ka. Saddexdaas aan fiiri doonaa si loo garto calaamadaha. Calaamada koowaad waxay noqonaysaa waa qofka maskaxdiisa oo miir daboolmo ama maskaxdiisa wax iska bedelaan. Sababtoo ah unugyada maskaxda wax energy ma haystaan marka si fiican uma shaqeynayaan. Qofku waxaa ku dhacaya inuu noqdo lethargy ama inuu noqdo qof daalan. Midda kale lagu arkaa waxay tahay qofka tamar daro ama weakness waxa loo yaqaan. Sababtoo ah muruqa waxay u baahan yihiin energy. Waxaa kaloo qofka lagu arkaa polyphagia ama qofka inuu aad u baahan yahay maadaama unugyada jirkii energy badan aysan helin. Maskaxdu waxay sheegaysaa in loo baahan yahay energy badan. Qofka waxaa kaloo lagu arkaa polyuria ama kaadida badan. Sababtoo ah ketone-ka iyo sokorta dhiig ku badan waxa ay kelida isku dayay inay aad si badan u saarto. Sokorta marka la saarayna qofka waxaa jirkiisa ka baxayo biyo badan. Sidoo kale qofku wuxuu luminaa qofka potassium badan, taasoo ku dhacaysa electrolyte imbalance ama potassium qofka uu yaraato. Waxaa kaloo lagu arki karaa oon badan, taasoo sabab ay u tahay kaadida fara badan oo qofka uu ka fuuq baxayo ama dehydration ku dhacay. Maskaxda jirka waxay u diraysaa in biyo badan loo baahan yahay, oona meesha ka dhalanaya marka. Calaamada kale lagu garto DKA waxaa kaloo lagu gartaa metabolic acidosis waxa la hayo. Metabolic acidosis wuxuu ku imaanaa ketone-kii faraha badnaa ee dhiigga ku batay. Ketone-ka waa acid. Maadaama dhiigga ku badatay ketone-kii, dhiigga waxaa ku badanaya acid. Acid-kaasna waxaa calaamad u noqonaya pH-ka oo ka yaraado 7.35. Sidoo kale si loo saaro ketone-ka faraha badan jirka wuxuu isticmaalaa sambabada oo kale. Sambabada qofka neefta qofka badanayso, neeftiisa waxaa sida adiga sokor camal neeftiisa soo uraysaa, waana ketone-kii oo jirka in laga saaro la isku dayayo. Qaabkee loo daryeelaa marka ama qofka DKA-ga qabo? Collaborative care loo yaqaana, daryeel wada jir ah. 3 meel laga daryeelaa ama 3 shay loo baahan yahay. Kow waa in la helo hydration qofka maadaama jirkii qofka uu baahan yahay oo unugyada jirkii ay energy haysanin ama qofka uu fuuq baxay. Waxaa loo baahan yahay faleebo sida sodium chloride ama sodium iyo dextrose isku dhex jirto. Ilaa sokorta 250 ay ka gaarayso looma bilaabayo qofka dextrose. Markii laakiin 250 sokorta ay gaarto milligram per deciliter, dextrose waa loo bilaabi doonaa qofka si sokorta ciyaw aysan u dhicin. Sidoo kale electrolyte-ka waa la sixi doonaa, potassium-tii, sodium-tii iyo bicarbonate-kii wixii dhan waa la sixi doonaa. pH-kana koraa loo qaadi doonaa
sidoo kale waxaa qofka la siin doonaa insulin ama insulin drip, insulin oo fale baa la siin doonaa. Saddexdaas hab waxaa lagu controlaa DKA ama diabetic ketoacidosis, taasoo ah qofka in fluid badan la siiyo, qofka in